dadka faasa ku laynin wararka aynu kugu haynay qodobka doodaba waxa uu yahay madaxweynaha galmudug ninka sheegtay Axmed Qoorqoor markii ugu horeysay nabar jibin ku sameeyay shacabkii galmudug ee kacdoonka abuurayay saraakiishii muqdisho ka tagay iyo ololihii lagu waday kooxda argixisada al-shabaab in gobolada galgaduud iyo mudug guud ahaan looga xoreeyo kadib markii Qoorqoor xilli xaalad dagaal lagu jiro uu ku dhawaaqay inuu kororsaday muddo hal sano ah arrintaasi waxa ay sababtay dadkii inay kala shakiyaan abaabulkii beelaha iyo ololihii ku socda dagaalkii kacdoon ku sii jeeday in mataqaanaa wuxuu isu bedelay dadkii ay shakiyaan qabiiladii hadda ay kale xaaladii way isbedeshay arrintaana waxaa keenaya dadkii niyadsamidoodii iskaashigoodii iyo dagaalkii lagula jira al-shabaab in xilli nuucan oo kale ah Qoorqoor uu yiraahdo mataqaanaa waqtigan kororsaday waxay macnaheedu tahay waa qorshe farmaajo iyo Fahad Yaasiin ay ka shaqaynayaan oo shabaab loogu hiilinayo oo Qoorqoor la soo dhex mariyay waxa weeye xaaladda noocaani waxa weeye dhabar jibin weey bari Saacad Saleebaan iyo Cayr oo is abaabulaya oo dagaal diyaar u ah in kastoo dagaalku uu istaagayn inuu Qoorqoor soo dhex galo oo xilligan ku dhawaaqo waqti kororsi waxaan loo joogin waxa weeye mar kastaba isaga waxa la yiraahdaa maska madow baa la yiraahdaa waa dhabar jibin buu u joogaa mar kasta wuxuu ka ganacsanayaa dadkan buu ka ganacsanayaa dhiigooda galmudug aan maamul lahayn galmudug mataqaanaa aan caafimaad hayn waxbarasho hayn biyo hayn shacabkii argixisada al-shabaab way gubayaan guriyii bay ka gubeen ceelashii bay ka owdeen dhibaato dhan baa dhacday intaasoo 100 oo qof oo afduubteen ay kuntineer ku xireen waxa weeye xaaladda noocaasa ayuu mooryaankii madooba Axmed Qoorqoor soo dhex galay oo xilligan xasaasiga ah ee dadku ay u istaageen iskala dagaal argixisada ayuu ku sameeyay dhabar jibin dadka laga doonayaa inay mataqaana kuwa maasanta dadka laga doonayaa inay mataqaana dagaalamaan oo wax iska celiyaan dadka laga doonayaa inay gartaan inuu cadow shabaabka lamida uu yahay Axmed Qoorqoor shacabka laga rabaa inay fahmaan war si kastoo habar gidirow ninkan uu qabiil yahay ninkan ummadii uu baabi'inayaa waxa la iska doonayaa in afka furataan meel kasta daliye dibad waa in la cambaareeyo ninka uu farmaajo meesha keensaday ee Fahad Yaasiin farmaajo u shaqeeya mataqaanaa ee qaa'inka ah waxa la rabaa inaad ku kacdaan dal iyo dibad meesha joogtaan qof kasta oo hawiya ninkaasi caawa ha soo cambaareeyo dadweynahana qadka telefoonka u fasaxaya انت قلت لي وفيد ايش شغاله مياه ويا سو دواده دايرو ودونا دايرو ودونا xilligan xasaasiga ah ee argixisada dagaalka lagula jiro may tahay inuu Qoorqoor ka hadlo waqti kororsi iyo wax lamid inuu keeno xilligan maxay ka dhiganta daahiro aniga hadaan ka hadlo nin kula hadla waayaan le hadaan ka hadlo xilligan lagu jiro mataqaana meel walba arrin walaacsan ay ka taagan tahay waxaan leeyahay Qoorqoor madaxa laga maro ma fahanti waa isku tastaan Qoorqoor waa asqaranaya markay Saleebaan hubki qaateen Saacad hubki qaateen Cayr hubki qaateen lagu ballamay in mataqaana Ceelbuur iyo Xardheere mataqaana laga shaaho oo dagaalka loo diyaar garoobay ayuu wuxuu yiri waqtiyan kororsaday mashruuc kale oo furay furan kale oo dagaal oo furay mashruucaas waa dareemaynaa mashruuc waxa waaye anigu mar horaaba iriba qoorqoor naclo ku yaalkaas qoorqoor waxa waaye shabaab mar horaan iriba ma garat wallahi anigu waxaan ka shakaysan ninkaas inuu shabaab la shaqeynayo shaki weyn aan ka qabaa
laakiin hadduu qorqor faham waxaan la leeyahay shaqaynayo qorqor waxaan leeyahay ani ra'yigayga haddaan fiiriyo qorqor intay isku tagaan galmudugta meesha joogta galmudug kale awreysa jirin habar gidir waaye ha ka tuuran xilka madaxa laga tuuro meesha haddaan saas laga baan qabo leeyahay qorqoor oo aan xaduudaha laga soo xirin oo aan caasimadda laga saarin wax dhaqaaqa iyo wax hagaaga haba yaraatee ma jiraanba saas waa saas masacayraa siiriya masacayr haye haluguma dahraadaa dhihi lahaa adeerani kursigaa laga tuulo maylaka qorqor xaafid waayabe waxa maanta la dhameeyey ee ceelasha laga duugay ee caado kibir laga gubay ee baxda waxa aragtay lagu sameeyey ee dhibkii ugu weyn ku dhaca waa Saleebaan markii hubka la qaatay ee warsamagaab tagay ee xasan jaamici tagay ee raggii oo dhan ay gabiyeen ee mataqaanaa la soo urursaday ayuu maanta furin kale oo dagaal furay oo wili waqtiyan kororsaday si ay habargiisii midka ahayd mataqaanaa ay u kala jabaan oo laga shakiyo horta daahiro waxa kula hadlaayo nashaadnalka ma fahamtay yaa ila hadlaaye nashaadnalka waa qofka kula hadlaysa ma fahamtay waaya nashaad haye haddaan tan qoorqoor ka hadlana niyo horta ninkaas qoorqoor la dhahaayo kuleeba galmudugtii horeeto markii la aasaasayo asaga la dooranayay haddii reer xaaji Saleebaan laga hadlo horta raalliba kamaysa ahayn fogtoodii hore ma fahamtay waaya maanta in dhulalkeena la gubo oo ilmahana la gubo gawaarida la gubo annagana lagu soo jeestana waxa ka dambeeyay dadka kale aaminsan waxba nagama gelin laakiin haddaan reer xaaji Saleebaan ay kala borobar wixii aaminsan yihiin wixii nagu dhacay inuu qorqor mas'uul ka yahay waaya annaga qorqor hortiisa dadweynuhuna waa og yihiin dadka kalena waa og yihiin magaca hawiye marka habar gidir la dhaho shabaab naguma soo degdegi jirin khaasatan magaca Saleebaan markii la dhaho weligood shabaab soona aan leenahay galaas biyaa kamaysa darsanin inay nabad naga baryaan maahan maanta inay inta nagu soo jeestaan ilmaheena dilaan carradeena gubaan waxa ka dambeeya horta waa qorqor shalana markii la doortay qabiil cidii ugu horeeday oo reer galmudug oo gacanta taagato dhahday 40 sano qorqor xilka haayo annaga madaxweyne nooma ahano dawlad gooniya noqonaynaa oo dadka dartooda aan u aamusnayn waxa dhibaatada dhan waxa nagu hay qorqor oo dadku u ficnaasay u taalaa waaya haddii marka tala aniga ahaan hadda tala haddii aan dhaho waa soo jeedina waxaan dhihi lahaa intaa shabaab lagu duulaamin nin meeqa kun ninoo naga dhimato halyeeyiin aan ka samarnee qorqor awlus wax noo gelino kooba horta dilka asagaa laga bilaabo duugtiisa marka dhacda kabacdada kale haddaana qorqor la iska hor leexin weligeed shabaab baan haysanaya qarax dhimasho wariyaa wixii saraakiil galmudug ee u yimid maanta ninka nool ma leh ama qoojere ha ahaado ama qoojo dagaale ha ahaado ama saraakiishi kale ha ahaato kuwa uu ku dilo magaca ahlu sunno iyo kuwa ay shabaab dileen buu ka dhigay wax waji oo qorqor annaga naga leeyahay ama uu naga raba haddaa reer xaaji Saleebaan horta ma jirto cidaha kaleeto mindhaa wajigu rabay annagana waaba dadweynaha welina kusoo jeedinaan diideyno cidiisii ugu horreeday oo kusoo jeesata waa in la dhahaan diideyna ma ahane haddeertaan iyo tala markii la dhaho qorqor bal galmudug asoo nabad qaba ha ku noqdo hayga tegin marka nashaado gabar fikir fiican baa tahay maanta waxaa looga badbaadi karaa shabaab cadowga shabaab ee argixisada ah waa in qoorqoor farmaajiyi fahad ciday wataan waxaa in layska hor leexiyo wey intaa shabaab la dagaal sababtoo ah shabaab kula joogo oo ku maamulaya oo madaxweynahaaga sheeganaya sidii mataqaan loola dagaalo way adkaanaysaa sababtoo sirtii uu bixinaya xitaa marka waa yahay kuwiinaan siinaya kuwiin haye kuwiin way maqlaysaa rashki ka soo bax muud rashki muud ka soo bax waa mahadsan tahay waad islaama dhammaantiina neo daar cali sow aniga waxaan fahmi la'ahay sababta uu qorqoor uga duwan yahay cali guudlaawo baa sanad ku darsaday lafta gareen baa sanad ku darsaday axmedoobe baa sanad ku darsaday maamul goboleedyadii puntland hore bay 5 sano maadaama dee maamul goboleed kasta laga dhigay 5 sano asaga muxuu uga duwan yahay warninkaan adiga waxay ka qaldan mataqaanaa cali guudlaaw iyo wuxuu qabtaa cali guudlaaw waa maqaar saare iyo wuxuu qabtaa hawiye waxaa ka qaldan war horta ninkaani deegaanka ma ka shaqaynayaa in shabaab la isku xoreey ma raba cali guudlaaw adriisi intay abgaalis abaabuleen ay xawaadiis abaabuleen markuu dagaalka socdo inta soo fadhiistay dhihi ma aniga hal sana ku darsaday
cali guudlaabana wuu ogyahay inuu sii joogayn oo aan laga yeelayn inuu meeshaan sii joogo laakiin ninkaan shabaabka markii warsamagaab tegey ee xasjaamici tegey ee saraakiishii dhaqaatiirtii habargida dhagbaxeen ee dagaalka loo diyaar garoobay inuu inta baarlamaanka fariisi yidhaahdo hal sanaan ku dirsaday waa u jeedaa inay tahay dhabarjibin uu samaynayo soo dhow gabadh qofka leeda axmed u qoranta anaa kuwa tadee waa iga daftaan dhamaystirta fikirka aniga ma hadli karaa aniga ma hadli karaa kuwin hadal daahiro aniga horta hadda siyaasadda ma ka hadlaayo ma ku fiicni aniga in adeertay hataa dacwo kalaa wataa ma ii qaadi kartaa hadda laakiin hadda waxaa socota dooda markay dhamaad kadib kadib haye maya horta laakiin waxaa kuu sheegna waa wax yar erin yar ninka la dhahayo adres been baan dacwo ka ahay oo wuxuu yiri gaadsan aniga naag saacad oo reer nimcaala oo in adeertaa laakiin gaadsan ay dhaleen wiil baa dhaha waa kula dheelayaa markaasuu wuxuu yiri wiil gaadsan baa ila dheelayay halay caawiyo xalay leefka markaasuu yiri gaadsan ma reer baa waa ka gubta arrinkaas marka waxaa rabay inaan ninkaas meela kala hadlana ma aqaana inaa adiga dacwo noo kala qaadid oo raadisid oo dhahda gaadsan waa reer jiro daday dhaleenaa joogaan gaadsan waa niman laandheeryaalaho raggaan dirta ugu laandheersamay gaadsan aniga anaa isku xiraay hadhow nambarkaa igu soo qor luuq igu soo qor anaa isku xiraay anigu waa ka dagaaya siyaasadda wixii siyaasada oo isku hayna anaga gaadsan iyo waa iska caadi laakiin nimankaa niman tolkeena weeye waa niman fiican aad u fiican weeye haye waaya marka xalayna labada diyaaradna aniga waa iga qaldantay sacad siciid ahaana usoo diray marna markay gabadhii halkaas saarneed ee dhehaysa gaadsan aniga haystaa gaadsan ahaana usoo diray marka waa kaasaa daahiro ani in adeertaaya ahay saas ogow inaa hadda lambarka lug kugu soo qora igu xiriiri xala ma seexan ما يوحش عادو أنا نكاس بيان كسارة وأكون تصلوا قيس قدام بركاك هي وكدقة ويا نكاس كوري أحمد والتصاقل أحمد هاي أحمد دايرو سلامة لما هذه الدعوة يا هذا موضوع عاد ماشي هذا السنة موضوع لو باهين هاي دايرو ورتا لما دتك رجل المدوك وإن أي كديان كدرس ياتراك السنة أو كدرس أحمد قرقور أول لما يشوف حكومي مدوالو أوجا haddii dadnimo iyo ehelnimo iyo dastuur uu ka jiro galmudug waa in si dhaqsi ah looga dhiidiyo arrintaasna ninkaas si dhaqsi ah meesha loogu turo awalba wuxuu ahaa nin meesha la keenay oo awal maqaarsaar ahaa haddana waa in insha allahu tacaala waqti ugu dhaqsiyaha badan dhammaan dadka reer galmudug iyo khaasatan habargidir ay ka munaaqashooto arrintaas ay kasoo saaraan wax oo lagu qanco dadka reer galmudug ay ku qancaan daar midda kale waxaan u sheegayaa dadka qaba hebel baa ku darsaday axmedoo baa ku darsaday cali guudlaab galmudug lama soo doonto sheeka nacnaca galmudug wiil kibray iyo gabar kibray oo qorigiisu u cabaysan yahaa jooga maaha meelaha gumaysiga iyo ku darsiga iyo qabaannimada iyo argixisoo shaqaynta iyo dad aqbalaya reer galmudug ma aha darteed waxaa weeye daayir waan kaa dhex galay tan haddii looga yeelo looga aamuso waxaa imaan doonto inuu ninkaas uu yiraahdo meeshan sanadanan ay noqon doontaa waa in ay ka dhiidiyaan dadka reer galmudug waa in si dhaqsiyaan looga hadlo dhammaanna horta arrinta dowladda hoosena way ka wada aamuseen dadka reer galmudug way ka wada aamusan yihiin ilaa hadda qof ka hadlo adiga ahan ma jiro caawa laga soo saaraya caawa sacad iyo saleebaan iyo cayr caaway fadhiyaan walaa laga soo saaraya ma fahmi waa dhamaatay waxaan leenahay dhammaan dadka reer galmudug dastuurka ay ku heshiiyeen iyo waxay maanta ay wada qorteen iyo waxay heshiis ku yihiin lagu dhaqmo ayaan rajeynaya insha allah taala waan ku salaama dayaxnuur soo dhow daahirow waan ku salaamay waa kaa qaaday qoorqoor waxaan la yaabanayn 4 sano goormay u dhammaanaysaaye waaba sugayno waxaan dhahayay waxaan ku xushmeynaynay reer xaaji saleebaano waxaan dhahaynay 4 sano goormay u dhammaanaysa wayba nugu badnaydba 10 sano ay nagala badan tahay asagana waaba noo kordhisadayba inkaar baaba nugu dhacdayba annaga saleebaan haddii rabaan weligood madaxweynaha galmudug iska astaano annaga dhib nuguma hayso qofka meesha madaxweynaha ka ah qofkana hala yimaadaan laakiin nin u shaqayhaya farmaajo iyo shabaab iyo fahad yaasiin oo wuxuu deegaanka ku sameeyey la ogyahay daahirow markaa ka hadashid dad baa waxay u qaadanayaan inaan saleebaan annaka walaalaheen aan ka soo horjeedno ma ahan saas xaaladdu ninkan waa la yaqaanaa 4 sano meesha joogay fahad yaasiin buu u shaqaynayay iyo farmaajo habargidir qorigu isugu dhiibay waa isku diray waddankii waa baabi'iyey wisil markii ciidamadii ka dagaalamayay wisil wuxuu sameeyey
asaga iyo ninkii biixi la dhihi jiray inay laayaan ciidankii waxay ku talagaleen wisil jooga waana laayeen waxa dagaalkii baa looga baxay intuu yiri dagaalkan wax ka galeynaa ayuu nooga baxeen oo dagaalkii way nooga baxeen waxay kaloo sameeyeen 14 gaari oo galmudug leedahay buu wisil inta u dhigay iyo gaari daqoobay hubkii 2 sano lagu dagaalami lahaa uga buuxiyay buu yiri ciidamadii ka soo carara markaas la tago shabaab la tagay shabaab aniga maalintaasaan qorqor ogaaday inuu la shaqeynayo marka ilmaadeen rayaalow anu waxaan la hadlayaa maanta reer Xaaji Saleebaan walaalaheen baatiin waa idin jecelnahay keensada odawaan noo keena ninka la yiraahdo alcadaalad noo keena ragga war wanaagsan reer Xaaji Saleebaan noo keena laakiin ilmaadeen rayaalow nin xun madaxa ma saaran karno Saleebaan wuxuu ma hayo cayr wuxuu ma hayo saruur wuxuu ma hayo dudubla wuxuu ma hayo murursada wuxuu ma hayo ree galmudug oo dhan wuxuu u hayo malahan marka waxaan idinka codsanaynaa nin wanaagsan noo keena madaxa noo saarantiin walaalaheen baatiin idima diidayno 10 sano mid noo joogo reer Xaaji Saleebaan noo keena laakiin uqdada nooga qaadinina qorqor ما في قف أوت قارئ هو كارثة قرقر ما هو كشقينا ما جت قرقر وتوه محل كده يسني دايرو هاي مرة قبل هذا هالمر قبل هذا الكذا كده حقله أبا برنامج ماشي لقى هلا سليمان مع وشخص كترسن ذكر القلم ما فهمت وعلى قال له وقرقر أنا ما أمسني ودتك هو أمسنادان إنه سليمان يا لكن أنا كأهان تيجنا شعبان إنه سليمان يا أما هبل قدري هذا بهما أمسنا صوبته نينك هذا المحل ده هاي ما أنت قف كدون هنقد نينك كدون هنقد لكن مركز النفلت هاي وأنا هرت جوري جاجة يمشي هذيك أكسر جدا أو أكسر قبتين نفتيس جبل نفس كلام كالكال قرقر ما أمسنين ما أنت لودي بين إنه قلم تقول حقوق بكرة ما أنتنا إنه وحقوق بكرة ما أنيسني مركي ريال اللي قاعد صابته قرقر قف هبر قدر أو حما قوانين أو وحقوق بطي ومحل داية مريحان مركي سيرياس كلا قاعد صابته قرقر أنتوا عبض واقع يعني مريحان أو درسي يعني سليمان موسى محل داية هل يدي سليمان أصلا عمري مركي سح لا قاعد له رج بدن أو أنت نبض قدري أو سير صار نبض دونشة الدلينة ويجرتها دارش أنا عاود يا دل دارش أنا مركا دارش أنا هل يومها معناها قرقر مركي لقاها الفكرة أهانتي سمركي لقاها صوتك حتى قبيلة ذكلا سليمان أهانتنا ويجي إلى ذاتك هل يضمن إنه الدلو dadku commentiga soo qoraya aniga ugu aflagaadeynay markii serious-ka laga hadlo qofka runtiisa la sheego lagu leeyahay maxaa la qorqorna bir subax ama aakhiro ilaahay aboor iga dad ma korkeyga laakiin qorqor dadkeena Saleebaan xadan ku kuday xitaa Saleebaan markaana anaga waxba nooma qaban aanan ahayn in dumarkeena la dhaco naagahana la dilo guryahan iyo gawaarina la gubo reemayaalka inta laga tagay reemiga inuu qorqor laga gubo waxa loo galan lama arko hal sano isku daayay ruba hadduu ku darsadane Saleebaan go'aankooda ama inay waxay go'aan ahaan ay qaadan doonaan waxay tahay inay noqdaan xibin xeebtoodii hore ee galmudug ka baxaan sababtoo galmudug ayada ma lagu soo duumanayo aan la baabiyay maanta soo aniga laftigay qorqor caana ma siinayn laakiin adiga fahmine abaayo Saleebaan macnaha waxa ka hadlaya waxay tahay luqadda ku soo celinaysa waa Saleebaan meesha waxa looga hadlayo Saleebaan ma aha macnaha dad walaale dhagaysa abaayo hayga leexin toobigayga waxa weeye walaashay dayaxnuura gabadhan Saleebaan waay alashaad hadlaysa Saleebaan waay say u hadlaysana saxay ku joogtaa ma fahamta okay dhagaysa marka waxaan anigu ka yaabay markii 14 gaari sidee bay shabaab u qabsadeen 14 gaari ilaa hubkii 2 sano lagu isaga la shaqeynaysa u qabto waaye asaga u diyaariyay 2 sano hubkii lagu dagaalami lahaana sidee amaara loo geeyay inta hal gaari laga buuxiyay waxaan la yaabay ninkan horta inuu la shaqeeyo waxa weeye shaki kuma jiro tan labaad mid ku soo horta dadka maanta baalki maxaa la dhaabay mid ku soo dadka maanta hadda dagaal ku haysto bulayso abaan dagaal ku haysto
quraxay dhageyso maanta dadku dagaal ka haysto oo beero iyo guryo iyo ari iyo gawaari iyo dadba laga gubay hortii yihiin oo habar gidra soo saleebaan ma ninka oo macnaha maanta aan ku mana sheeganan war fiiri hadduusan ahayn oo saleebaan baabiis ahaynin hadarta markii gargaarka ay saleebaan fidsadeen oo saleebaan is aruuriyeen oo saleebaan damceen inay shabaab la dagaalamaan la qofka la dagaalaya nin habar gidra ma moogdo ee damceen inay dagaalamaan ninkii yiri waxba yaa la duulaanin waa ninkii diiday oo yiri maxaa la dhahay qisada cadaada ka dhacda hadda oo xataa u diiday gudoomiyaha cadaada wuxuu yiri kushilin gudoomiyaha cadaada wuxuu yiri waxa dagaalka ka dhacaya in shabaab iyo saleebaan aan mas'uul ka noqonaysa ma jirto wuu diiday wuxuu yiri lacagta maxaa la dhahay ragga lagu dhiirigelinayo anaa lagu soo shubayo qorqor wuxuu lacagta u qaadanayna waxay tahay inuu saleebaan waxba siinin saasna lagu cuno abaabulka saleebaan is abaabulayaan ay qalab qaadanayaan ay rabaan inay shabaab iska xiyaan wuu diiday maxaa la dhahay ninka la yiraahdo farma baaxkii qorqor wuu diiday wuxuu yiri lacagta iyo dakhliga saleebaan lagu bixi lahaa inay hub iyo wax ku gataan aniga lagu soo wareejiyo anaa siinaaye waa lagu wada jifaa saleebaan inuu waxba siinay marka ninka lugooyo saleebaan ka shaqeynaa maahane ladnaan saleebaan ka shaqeynaa midda kaleeto ama saxada aan noqdo ama saleebaan aan noqdo dadweynuhu wixii qofka bilaadanimo xumaan leeyahay waa la sheegaa maahan dhagayso macaan diyaar waa socod horta dhibaatada wisilba 300 oo wiil ayaa qaycad nala kaga dilay ma fahantay oo intuu سلام ودتك وجوري دقيقة سلام ودتك وجوري هل مالين قلنكد وهل مالين بس صدق يطبن مال لقلا دقالة مواي أو مالنا دايرو ماشي دايرو فكرة لما ماشي نقول ما يفتك نقاط marka qasabta ayaa lixii kaada saxwe gabadha sare wax shay kale say hal mar ii kaadi wiilka sururka asiir soo galay qofka sururka ay soo kor saaran ka soo maxmuud surur bulka soo bax waayahay qofkan galmudug uu qoran taasiyo qofkan galmudug uu qoran taasma asiyo hay galmudug hal okay daaru dhamaantiin waa aad baan idin salaamaya codkaaga lama maqlaba saaranba hadda ma la maqlaa hadda hadal nuuraxta codkeeda taas waaye lama maqlo aad baan dhamaantiin aad baan idin salaamayaa horta markii masiirka galmudug hawsha maraydo waxaa fiican in loo fiirin kan waa reebel aan loo fiirin door ba ahaado masiirka galmudug markii xaaladdu maraydo qofkii qaldan horta waa la iska qabaa kow midda soo harta waxay tahay qorqorshada soo kusoo baxa waaweyn raalli kamaan ahayn markii dambe waxa waaye farmaajo faat xaaladda Soomaaliya qarribeen ninkii waxa waaye banaadir badbaadi waaye waxa waa hadli waaye codka sidii waaye ahay waxa anagoo salaamaad anigii kula hadlay raaxay salaamaan ahay kuma raacsanin waliba waxaan tala ku bixi lahaa nimanka meesha jarnaalada oo ah ay sheegay warsama gaab iyo xasan jaamici iyo inay soo taginba ninkaas ayagoo meel saaran ma garad ما دقالك الشباب كان قرقورة كهرية قرقور وحور رباع وحور كل هذه ماشي الشباب كان بحال قرقور ها قرقور كإني لواس معنا لواس نرال وحواس سليمان يقانو واي نمكو وينا واي إني قرقور وحواي هو سملكو سوء هذان واي مقرد كان كلو نينك وسليماني واساني نومان هدو سعدي هدو سليماني هدو عري هدو سروري هاي ninkii qaldan waa la isqabaa masiirka wax kasta kooy ma garad waa sax marka waxba yal kala qaadin marka intaas ku soo gabagabaya ma garad aad waa samay brada wiilka sururka oo qoranta ma ka soo baxay muudka bas waa oktoobar gabar surur waa gabar surur hay ku soco absata caafimaadkaaga وفي أنا ما أنت هذا المية ماشي سلام إحنا مالك كسر برنامج حساسي الله يا شباب بعدك الله يا كنت أنا رالو لقرية قريه لقبية أشياء لقبية ما كديار كوني بالأول قرقور ما ندبر جميلية أنا قاعدين لاعبين فرماجي فهد ياسين تبغى تقوى oo magaalada taqo anaga inuu maanta gidir mataleena huwa uun matali karin babataatan هذا أنت صرت أوكي وي أنت داوت أوكي وي وحنا بعدين يلادو إن الدنيا دبت كعان dadkeena maxay yihiin
aan dadkooda u dabqanayn dadkeeniyaa laynaya maxaa noo haray waxa noo haray maxay aan meesha fadhino adiga dadka iyo ku teeran lagu xalinay adduunka xay ka dhacday qabiil dhan oo dadkooda la ogaansanayo oo laynayo ilmahooda la laynayo xoolihii laga boobayo oo guryihi laga gubayo oo ceelasha laga owdayo oo iska fadhiyo iska sheekaysanaya damiirkii xaguu naga aadi aw damiirkii oo dad islaamada nabad u raadina fiiri nin gurigiisii gubanayo oo rabo inuu guri kala islaameed oo gubanayo biyo ku shubo macnaha wuxuu dadka u qabanaya aniin dadka hadda qorqor aaminsan waxaan ba aaminsana xataa inay dhakhtar maskaxda u baahan yihiin sababtoo nin naagtiisii ilmihiisii maxaa la dhaha hooyadiis walaashiis la dilaayo ee walaalii hooyo islaameed kaleeto ulka joojinayo noloshiisa lama sheegin isku qabo ama ka fariis meesha ka muuqayo ama ka maqnaaw qorqor 4 sano xil haayaa hal marna asoo la amaanayo ma aragteen waa maya maxaa keenay asaa keensada sababtoo السلام عليكم وايد سلامي دار عبد الله على السوق صاحب وك سلام يا ورنيو قرقور أنا من مثله هدينو نهاي سليوان قرقور وراع تنكي كدم بي فرماجو قرقور واسك خوانينا ورنيو سليوان معها إن لو قرقور لو جافتيستو قرقور وانحن أو لكساي ماميسا صاحب سليوان وباور وكينج وسيرتها برقدر صاحب صح marka niyo dadkan gabadhan dayax dambare tuureysa dayaxee naga xisho biliis hadalkaaga waa naguwayaa ma aha qorqor awgiisa inaad saleebaan u ajaafaysto abaayo gamisa saleebaan waa dad gob wallaahi bilaahi oo talaahi qorqorna waa saleebaan ninka la imaado oo madaxweyne meesha noqdo kan noo shaqay bay ku tiri daahiro hal mid haddaa kuu sheego horta fikradda ee reer xaji saleeban aaminsanyiin waxay tahay inay kursi madax ku fariistaan inay ku fariistaan oo dhanba ma rabaa sababtoo in lagu soo hoos gambada berri ka maalin oo la yidhaha inay saan wax noqdeen adinkaa ka dambeeyey oo dhan ayba diidayin horta markii siriyaska saleebaan laga hadlo waa saleebaanna qoorqoor ayadoo sacad jecel yihiin ceer jecel yihiin saruur jecel yihiin dadka kale dhan ay jecel yihiin oo la rabo ay saleebaan naceen waxayna u naceen ninay yaqaaniin wuxuu yahay waaye intaanteen ninaa taqaana yaa tahay lama yiraa la yiri marka gabadhan anaga saleebaan horta erayga saleebaan la yiraa ee qorqor labay kala noqonayaan hal mid ma noqon karaan sababtoo waa shakhsi wax saleebaan ka gala lama arko aniga si kala ii fahamtay anigu waxaan diidahayay qorqor dad jecel baa jiray kusoo dhawo dayax noor kusoo dhawo marka hadlayso codka maxaa kaaga dhacay codka iga fog miyaa هيرفون ما سمع عليك ساعة ما استعمالي كنت أدوه تلفونك أنا ما أطلع دارو كنت رشا إليك هذه هذا اللورة ويلك هاي وحير بيسي هاي رشا سيدة دايرو نينك قرقور لي يراد إن laga saar cadaawada aniga mar hore ii galmudug mar hore sheegay 2016 aan sheegay intoos madaxweynimada oo aan loo dooran reerka saleebaanna waxa way gurab taagiin asaga macal saleebaan in la israaciyo galmudug laga saar aniga qaba daayro maxaa wadaad waxaas horta niyo kan moogta laangaab waaye saleebaan moogta waa sida habar gidir war niyo saleebaan habar gidir manuureeso ma qabsanayaan qorqor ma qabsanayaan rusha ilaahay saleebaan ka bawaalanta maskiin horta ka yaabay ميه رير حاج سليمان دايرو نيو waxaan ku sheegay waxaan soo dhisin daar cala soo waa ku taageer haye daayro qorqor meel aska saarno saleemaha laga leexdo dad waa ka leexana qorqor meel aska saarno aska bixino maxaa qabiilka ku daba dhigay daayro yaa ku dhaay saleemaan waa rusheey saleemaan waa yaa ku dhaay daayro saleemaan baa taw koogaaniyo ciyaar suqnimo jooji arimaan ka hadlayna qobar kasta wallahi billahi tallahi inaana saleemaan ahayn daayro wallahi inaana saleemaan ahayn yaa ku yiri saleemaan waa war walangaab tur daar aso kan turniyo walangaab naga tur daayro calaso dadkan tur ku dhaca meelada aniga lacagan baxsada daayro lacagta ka sheekay muxuu yiri war kabada king gata daar aso king war lacag u baahan bahori yani lacag qabtaa ina dadkii lagu caayo lacag uma ku qaato macnaha saleebaan oo dhan waa taageerada waxaan iska qarwayba waxa weeye
xaqiiqada waxaa weeye waa in qoorqoor uu ka dhex baxaa ummadda wadkaaga culus qorqoran ka jeexi la lacag umuuka lacag waxay taraasudii lacag anaga shaqeyn anaga haysan lacag Saleebaan deernaa war daar cad soo salaamay marka wiil sac soo dhow wiil sac mud ka soo bax wiil sac mud ka soo bax okay qadka ayaga adigu ku dhooya daaro qadka ayaga adigu leeyahay marka waxaan sheegaa dadka aaminsan ee Saleebaan iyo qorqorna isku mid yihiin Saleebaan shakhsi ka soo baxay uu yahay laakiin fikradda iyo wuxuu sameynaa Saleebaan lama qabaan talkiisa lama qabaan shala markii fikrad farmaajo raaci qorqor hadaynu nahay anaga Saleebaan waa u shirnay qorqor waa iska qabanaynaa waa shakhsi Saleebaan oo sunti oo xumeynayay marka qorqor mana matalo daar caws waa ku salaamayaa dadka la jaan siinaya marka jamalka caasaan wiilkaas cadaal booy soo qabtay cadaal booy hay daar caws waa ku salaamayaa dhammaan asxaabta meesha saaran iyo inta daawanaysa ana horta waxaan dhihi lahaa ninkan waa